hey Africa hurdoy adow ku heriye hurdoy hadiye qaarad walba waxay leedahay taariikh u gooni ah haddaba ku soo dhawaada xaqiiqooyin ku saabsan qaaradda Afrika Afrika waa qaaradda labaad ee ugu weyn qaaradaha adduunka kadib qaaradda Aasiya dhanka baaxadda iyo dhanka dadkaba baaxadda Afrika waxay la eg tahay 30 milyan oo kiiloomitir square ah tiradaasi waxaa ku jira dhammaan jasiiradaha lagu xisaabo Afrika baaxaddeeda waxay dabooshaa 20% baaxadda dhulka oo dhan Afrika dadka ku nool dhammaan waa dadka madow marka laga reebo wadamada waqooyiga Afrika oo ay ku nool yihiin dad Carab ah iyo wadamada sida Koonfur Afrika, Zimbabwe iyo Namibia oo laga helo dad tiro yar oo cadaan ah oo ay ka tageen gumeystihii reer Yurub. Afrika waxay ka kooban tahay 54 dal. Dhammaan wadamada Afrika waxaa gumeystay reer galbeedka marka laga reebo Ethiopia iyo Liberia oo iyaga aan la gumeysan. Xayawaanaadka ugu waaweyn dunida sida gariga, dameer farowga iyo daanyeerada loo yaqaan gorillaha iyo noocyo badan oo duurjoog ah ayaa ku nool Afrika oo kaliya meel kalena aan laga helin adduunka. Ilbaxnimadii faraacintii dalka Masar ka jirtay waxaa loo aqoonsan yahay mid ka mid ah xadaaradaha adduunka ugu faca weyn uguna muddada dheeraa. Afrika waa qaaradda labaad ee adduunka ugu dadka badan kuna nool yihiin in kor u dhaaftay 1.1 milyan oo qof waxaa la sheegaa in ka badan 50% dadka Afrika dadoodu inay ka yar tahay 25 sano qaaradda Afrika waxaa loo qaybiyaa 5 gobol kuwaas oo ku saleysan juqraafiga deegaanka waxay kala yihiin bariga Afrika bartamaha Afrika waqooyiga Afrika galbeedka Afrika iyo koonfurta Afrika wabiga Niil waa wabiga ugu dheer caalamka dhererkiisuna wuxuu gaarayaa 6650 kiiloomitir wabiga Niil waxaa loo qaybiyaa Niilka buluuga ah iyo Niilka cadaanka ah midka buluuga ah wuxuu ka bilaabmaa harada loo yaqaan Tana ee ku taala dalka Itoobiya midka cadaankana wuxuu ka soo bilaabmaa harada weyn ee loo yaqaan Lake Victoria waxayna ku kulmaan Suudaan wabiga Niil wuxuu maraa ilaa iyo 10 dowladood waxayna kala yihiin Masar, Suudaan, Itoobiya, Kenya, Tanzania, Rwanda, Uganda, Burundi iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo. Kilimanjaro waa buurta ugu dheer Afrika. Buurtan waxay leedahay 3 volcano waxayna ku taalaa waqooyi bari ee dalka Tanzania. Buurtan dhererkeedu waa 5893 mitir. Waa buurta afraad ee u dheer caalamka. Afrika waxaa looga hadlaa luqado badan waxaa ka mid ah Carabiga, Ingiriiska, Sawaaxiliga, Faransiiska iyo Boortaqiiska. Carabiga waxaa ku hadasha 170 milyan, Ingiriiska 130 milyan, Sawaaxiliga 100 milyan, Faransiiska 20 milyan iyo Boortaqiiska oo ah 20 milyan.